iyadoo laga duulayo baaqi madaxweynaha Turkiga ee ololaha isgarabtaaga walaalaha Turkiga ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga waxay qaadatay doorkeeda ku aadan in sanduuqaasi ay qayb ka noqoto waxayna bilaabeen in jaaliyadda ku nool dalkan ay lacago ay aruuriyaan muddo isbuuc gudihiisa iyadoo lacagahaasi akoonka jaaliyaddu ay ku soo dhacayeen ay gaartay lacag dhan 110,000 oo lacagta liirada waddankan laga isticmaalaa munaasabadii lacagtaasi lagu wareejinayay ayaa waxa ay ka qabsoontay xarunta jaaliyadda ee magaalada Istanbul waxaana goobjoog ka ahaa madax ka socotay dowladda Turkiga oo isugu jiray la taliyaal madaxweyne madaxda jaaliyadaha dalkani ku nool iyo waliba warbaahinta Turkida Carabta iyo waliba kuwa Soomaalida ugu horeyntii waxaa goobta hadalla ka jeediyay gudoomiyaha guddiga sanduuqan lacag aruurinta Cabdilatiif Xasan Badawi. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بماد إسكاله ما أنتوا بيل رمضان تهاي سكوك هاي كان مناسبة دان كده عيسو حفيز الجود جالية الصومالية دولة تركيا مناسبة دان خص حبسن أولو جرب استاجا وأنو موجودين ولا علينا دولة تركيا ما دام حليو عدق وأن أد باهي بدن وقبنا إن جرب استاجين ay dhool cadaynta maanta wajigeena ka muuqatana ay ayaga ay dad naga kasbaday yihiin inaan u muujino maanta garab istaag ma ahan garab istaag aan u muujinayno inuu yahay mid ku dhaqaale bal waxa waaye waa wax ramzi ah waa wax tusaale ah oo aan rabnay inaan ku cabirno yani sid kalsoonida aan Turkida ku qabno dawladda Turkiga khaasatan madaxweynaheeda annagoo ku muujinayno mahad celin ahaan doorkii iyo kaalmadii iyo garab istaagi kala duwanaa ee noo muujiyeen xilladii kala duwanaa ee adkaa lacagta runteedii ayaa waxaa ka qayb galay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka kala gedisan ee waddanka Turkiga sida Istanbul, Ankara, Isparta, Burdur iyo Konya. Zakariya Hurre waxa uu ka mid yahay maamulka jaaliyadda ee magaalada Ankara. annagoo marka ka duulayno jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ku dhaqan ayadoo ka duulayso garab istaagii uu noo sameeyay madaxweynaha Turkiga iyo shacabka Turkiga madaxweynaha Turkigana uu ku dhawaaqay 30kii bishii Maarso 2020 markii coronavirus uu dilaacay in Turkidu ay isgarab istaagaan oo program ugu magac daray in Turkidu ay yihiin dad isgarab istaaga oo iscaawiyo ayaan waxaan garanay ka Soomaali ahaan in aan runtii annagana doorkeena ciyaarno dabcan ololahaas aan ka qayb qaadanay ama lacagtaas aan soo aruurinay macnaheeda kama dhigna Turkiga ayaan caawinayna kama dhigna waxay ka dhigan tahay Turkiga inaan u muujino dareen walaaltinimo dareen islaamnimo iyo dareen dad inaan nahay damqan karo waxna gudi karo oo abaal loo gali karo wakiil ka socday dawladda Turkiga iyo madaxda jaaliyadaha kala gedisan ee dalkan oo goobta hadalla ka jeediyay ayaa waxa ay aad u amaaneen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga doorkeeda ku aadan barnaamijkan sanduuqa iyagoona sheegay inay muhiim ahayn cadadka lacagta balse ay muujiyeen Soomaalida in quluubtooda ay ku weyn tahay walaaltinimada ay u hayaan walaalahooda Turkiga waxaana hadalladoodii ka mid ahaa جالية الصومالية على هذه اللافته الظريفة ونشكر كل فعاليات الجاليات العربية حقيقة الوحدة شيء جميل ومطلوب Somali toplumu, Türk toplumu kardeştir ve bunu da fiili olarak bugün burada toplanan insanlar gösteriyorlar, yapılan yardımlar, destekler gösteriyorlar. Bundan gurur duyuyorum. Ben bugün buraya tabii Sayın Hocamız Profesör Doktor Yasin Aktay Bey'in ismi adına geldim. Kendisi tek tek selamlarını iletiyor. Çok gurur duyduğu tabii bir durum fakat malum koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kendisi Ankara'da. Hepinize ayrı ayrı selamlar söylüyor. Gönülleri sizle beraber. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Somali toplumu ve Türk toplumunu kaynaştıran bu güzel insanlara teşekkür ederim. الجالية الصومالية مشكورة اليوم في تركيا برأيي ثلاث رسائل. الرسالة رسالتان للداخل التركي ورسالة للخارج لخارج تركيا. الرسالة الأولى لهذه الخطوة في الداخل التركي للأتراك لتقول لهم الجالية الصومالية والجاليات العربية بشكل عام
أن العرب في تركيا يقفون إلى جانب الشعب التركي عند المحن. Sefalar getirdiniz. Tabii Somalili kardeşlerin yaptığı bu Ali Cenap yardım çalışmaları bizi gururlandırdı. Çünkü bu coğrafyanın çocukları en ufak bir şeyde sıkıntıya girdiklerinde birbirine yardım edebildiklerini gösteriyorlar. Biz Balkan muharebelerinde, Cihan Harbi'nde yalnız kaldığımızda Hindistan'dan ugu dambeyntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey kusimaha guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga Axmed Sheekh Cabdulaahi Maadka. waxaa sharaf inoo ah inaan garab istaagan u muujino walaalaha Turkida taasoo macno weyn u yeelayso magaca Soomaaliyeed macno weyn u yeelayso anoo garab istaagaas oo dacmi maali aan ugu gudbinayno maanta magaca Soomaali dhan anoo ku wada hadlayno lacag gaaraysa 110,000 oo liira aan sanduuqii u furay madaxweynaha Erdogan oo aan isku tashanay garab istaaga heeday aan ku wada hadlayno dhamaan waxaan u mahadcelinaynaa dadka nagala soo qayb galay markastana jaaliyadda Soomaaliyeed waxay taagan tahay calanka Soomaaliya sharafka Soomaaliya munaasabtan ay ku matasho. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.